taariikhda kubadda cagta waxaa jira 5 comeback oo championka ka dhacay oo markasta bahda sportsku ay jecel yihiin inay ku cishtaan oo mar kale daawadaan. AC Milan iyo Liverpool 2005. Liverpool waxa ay comeback waliya ku samaysay koobkii championkana ka qaaday AC Milan, halka AC Milan half-time-kii hore ay la hormartay 3 gool. Half-time-kii dambana Liverpool 3 gool inta ka keentay penalty kaga qaaday 2. Chelsea 2013-2014 waxa ay comeback waliya ku samaysay PSG, taas oo quarter final ay iska hor imaadeen, halka kulankii hore PSG ay ku soo adkaatay 3 gool aan ka hal. Kulankii dambe ee guriga Chelsea la imaadayna ay Chelsea 3 gool ay ku badisay 3. Ma ilaawi doono comeback-kii dhexmaray Ajax iyo Tottenham, kaas oo dhacay 2018 2019 semi-final kii soo baxaaba uu finalka aadi doono. Ajax ayaa ku soo garaacday Tottenham gurigeeda 1-0, halka markii la tagay guriga Ajax ay Ajax ku darsatay 2 gool, taasoo ciyaarta ka dhigtay 3-0. hase ahaatee Tottenham ma niyad jabin oo ciyaarta waxay u bedeshay 4-3, taas oo finalka iska xaadirisay sugaysayna Barcelona iyo Liverpool kii soo baxa inay ku dhacdo 4. Ma ilaawi doono comeback-kii dhacay 2012-2013 ee Dortmund ay ku samaysay Malaga 3 gool aan ka 2. ciyaartaas oo quarter final ahayd, taas oo markii ciyaartu ay bilaabatayba ay Malaga gool la hormatay walow Lewandowski bareejiyay. hase ahaatee ciyaarta Malaga waxay u bedeshay 2 gool aan ka hal daqiiqadihii ugu dambeeyay. Dortmund waxa ay keentay gool, taas oo 3 daqiiqo ee ciyaarta lagu daray ay iska keentay goolkii 3aad oo sidaas ay semi-final ugu gudubtay. 5. Ma ilaawi doono Barcelona iyo Liverpool 2018 iyo 19 comeback-kii dhexmaray ee ugu weynaa ee champion ka dhaca, kaas oo Barcelona oo gurigeeda ku qaabishay kulankii hore semi-finalka Champions League ay Liverpool ku soo garaacday 3 gool aan ka 1. Liverpool oo joog sare ku soconaysa ayaa la soo karjabiyay, taas oo Messi 2 gool u ka dhaliyay, halna Blues ahayd 600 oo gool oo Barcelona ku gaaray. sidoo kale Suarez oo legend Liverpool ah uu goolka ka dhaliyay Liverpool. hase ahaatee wax walba waxay isbedeleen markii Anfield la imaaday oo Barcelona kubadda dhan ay u socotay iyo dhan ay ka socoto midna fahmi weyday, 4 goolna lagu garaacay. Liverpoolna sidaas ay final ugu gudubtay, kadibna koobkii ay ku guuleysatay. kulankaas waxa banaanka iskeenay Alexander-Arnold iyo sidoo kale Origi oo gool qiyaano ahayd ku xaday balaayarinta Barcelona, kuwaas oo iska taagtaagnaa. kadibna Origi uu madaxa ku dhuftay, garoonkuna uu wacdara qabsaday, warbaahintuna ay waqti dheer hadal haysay. haddaba 5taas comeback waxay noqdeen comeback-yadii ugu shidnaa ilaa iyo 2000. dhammaantiin aad u mahadsantihiin. muuqaalkan hadduu ku soo gaaray la wadaag asxaabta kale, waan idiin mahadcelinayaa dhammaantiin.